marka hore dee ilaahay baynu mahadnaqaynaa nicmooyinka faraha badan loo ina siiyey baynu ugu mahadnaqaynaa wax badan runtii ma jecel inaan idhaahdo meelo badan oo xasaasi ah oo dadku ay ka sasaya way jiraan kuwa waan iska dhaafayaa oo halkooda ku dhaafayaa qodob quraan doonaya inaan isdul taago waxa weeyaan qodobka kontaroolkan u dhexeeya labada gobol ee Hawdi iyo Hargeysa kolley waxaa jira qoraallo la soo saaray oo wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxay oo dadkuna ay aad uga qayliyeen runtii arrinkaasi wuxuu u baahan yahay in si fiican looga fiirsado marka tallaabooyin noocaas oo kale la qaadayo maaha in meel kaliya farta lagu fiiqo Hargeysa afarta koonabada waxay uga baahantay in xadkeedii yeelato caasimadda ugu horreyn waxaan soo jeedinayaa kolley in la sameeyo ama la ansixiyo xeerkii caasimadda kaasoo jaangoynaya goobta kontarooladu la dhigayo una fasaxaya kolley muwaadin kasta oo Somaliland u dhashay oo ku nool caasimadda inuu isu sharaxo golaha deegaanka ee caasimadda marka waxaan soo jeedinayaa in arrintaasi la adkeeyo oo xeerka la ansixiyo baarlamaanka muddo fara badan buu horyaalay wuxuu taaganay ilaa imika lama sixi karo waxaan leeyahay xeerka la ansixiyo si kontaroolada magaalada uu noqoto caasimadii dalkuna uu noqoto mid iyadu kaligeed iskeed u taagan aanay una noqonin wax reer ku tartamayaan ay u noqoto wax Somaliland oo dhan ka dhaxayso Somaliland oo dhan ay ku tartamayso taasaan soo jeedin lahaa dadweynaha ka hadlayna waan ku hambalyeynaya waxaan leeyahay aad baa uga mahadsantihiin qaabkay uga hadasheen wanaagsan wasiirka arrimaha gudaha waxaan ku boorinayaa inuu kolley halku digreeta ka soo saari lahaa meel qudha inuu dhammaan u doodo kontaroolada magaalada afarteeda koona ah inuu u doodo oo taa uu dabagalo aad iyo aadna runtii waan u adkaynayaa arrinkaas sababtoo ah waxay keenaysaa dariiq wanaagsan bay furaysaa marka caasimaddu keligeed istaagto dariiq wanaagsan bay furaysaa in la wada leeyahay bay furaysaa in Somaliland ay ka dhaxaysay furaysaa halka imika reeruhu keligood ay iska qabqabsanayaan waxaa kaloo intaa raacinayaa kolley xeerar badan baa jira oo dalka laga sameeyey xeerka degmooyinka jira qaarna waa la soo qaatay qaarna waa laga tegey waxaan odhan lahaa ama isaga sidiisa loo dabaqo si maartay goob waliba ay sideeda u madax banaanaato ama generally taa guud ee aan ka tilmaamayo hala soo qaato yaan laga dhigin hawdna in yaroo gaar ah oo gobolaha meel taala degmooyin aan magaranaysaa meel la ku tiirsanayn la yiraahdo Hargeysa ka tirsan yihiin oo codadkooda Hargeysa soo galayaan taas runtii waxay keenaysaa cadaalad darro keenaysaa mar walbana cadaalad darradaas way ku dhacdaa dadka deegaanka hawd degan waxaan leenahay arrinta laga fiirsado hana la adkeeyo qodobka aan soo jeediyay ah ansixinta xadka caasimadda raacinaya runtii waxa weeyaan waxaan hambalyeeynaya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo barnaamij aad u qurux badan ka jeediyay deegaanka Lanqeyrta oo leeyahay aad iyo aad baan kugu hambalyeynaya wax qabadka aad muujisay iyo horumarka aad magaranaysaa ballanqaadyada aad u samaysay aad baan kugu hambalyeynaya